Dagaalada iyo weerarada u dhaxeeya duurjoogta ma ahan mid dhamaada. Waxay noloshoodu ku dhisan tahay dagaal iyo weerar si ay u noolaadaan. Marka ay dagaalamayaan xayawaanaadkan ma lahan wax xeer iyo qaanuun ah oo kala celiya. Waa mid walba taagtiisa iyo tabartiisa. Mid walba oo xoog lihi waxa uu dilaa midka uu ka tabaron yahay. Waxaanu maanta muuqaalkan ku daawanaynaa dagaalada ugu xiisaha badan ee dhex maray xayawaanaadkan. balse inta aanan bilaabin ka hor haddaad ku cusub tahay channelka Kasmaal Production ku soo biir oo subscribe dheh, like saar muuqaalka si aan u ogaano inta qof ee xiiseysa muuqaalada noocani oo kala ah. ku soo dhawaada muuqaalka oo dhameystiran. Shabeelka iyo xayawaanka loo yaqaan dubka. Dagaalkan wuxuu dhex maray shabeelka iyo xayawaanka loo yaqaan dubka ama dubaha. waxa uuna ka dhacay dalka Hindiya. Sababta dagaalkanina waxa uu ahaa shabeelka oo isku dayay inuu cuno ilmaha yaryar ee dubka, balse waxa uu shabeelku ka dul dhacay hooyada dhashay ilmahan yaryar oo u diyaarsan inay difaacato carruurteeda. waxaana labadooda dhex maray dagaal aad u qaraar oo qaatay daqiiqado, ugu dambeyntiina looga adkaaday shabeelka. Maroodiga iyo jeerta. loolan iyo dagaal aad u adag oo dhex maray maroodigan iyo jeertan waxa uu suurta gashay maroodiga inuu ka takhaluso jeertan. waxa uuna dagaalkani ka dhacay qaaradda Afrika sanadku markuu ahaa 2013. kani waa muuqaal muujinaya fardo daaqay iyo yaxaas ka soo baxay webiga isla markaasina dhex maraya fardaha. isla markiiba waxa arkay faraskan. waxa uuna ku qaaday weerar toos ah oo uusan ka fiirsan. waxa uuna ku garaacay qoobabkiisa, balse yaxaaska ayaa aargoostay isagoo afkiisa u dhigay qoobka faraska. wuuna qaniinay, waxa uuna gaarsiiyay dhaawac culus. libaaxa iyo yaxaaska. muuqaalkan waxa uu muujinayaa koox libaaxyo ah oo weeraraya yaxaas. yaxaaska ayaa isku dayay inuu isdifaaco isla markaasina uu qabto mid ka mid ah libaaxyadan, balse uma aysan suurta gelin libaaxyada oo ka badan awgeed. waxaase ugu dambeyntii u suurta gashay inuu ka fakado libaaxyada oo uu cararo. muuqaalkan waa mid ka mid ah muuqaalada aadka ugu faafay internetka, waana mid ka mid ah dagaalada cajiibka ah ee dhex maray xayawaanaadka. waxa uu dhex maray wiisha iyo mid ka mid ah loogisida, waxaana raayay oo adkaaday wiisha. shabeelka iyo yaxaaska waa mid ka mid ah dagaalada ugu xiisaha badan ee dhex mara xayawaanaadka. shabeelkan ayaa qabtay yaxaaska, waxa uuna u dhigay cashar uusan hilmaami doonin. yaxaaska ayaa isku dayay inuu ka fakado shabeelka, balse uma aysan suurta gelin, waxa ayna guushu raacday shabeelka. haddaad dhammaysatay muuqaalkan, share dheh oo la wadaag asxaabtaada. ku soo biir channelka Kasmaal Production, like saar muuqaalka. intaa ku kulmi doono muuqaalka xiga. sidaa iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.